ummadda reer Soomaaliland waxaanu la socodsiinay in xeerka doorashooyinka xeer 14 uu qorayo in 10 sanadood ba mar la furo ururada siyaasadda. awal waxaynu ku soo kala bixi jiray ama xambaari jiray ururada siyaasadda doorashada dawladaha hoose ayaa lagu geli jiray tartan. saddexda doorashada dawladaha hoose ugu sareeya ayaa markaas loo aqoonsan jiray sida dastuurku sheegayo xisbi qaran. waxaa arinta uu ku dheeraada in doorashadii dawladaha hoose lagu daray baarlamaanka. waxaa soo baxay dadkiina inuu u baahan yahay in ururadii furmaan. doorashadii dawladaha hoosena la maray oo doorashadii maalintii waagi dhow suuskanadeenu galeen baa. marka xeerkii lama oran xeerku wuxuu ku furmayaa ama u spiritually dawladaha hoose markasta 10 sanadoodba waa in la furaa ururada siyaasiga si ay u soo baxaan saddex xisbi oo qaran oo ama ka ay noqon karaan kuwii hore ama ay isbedeli karaan. sababta ayaa markaa anigoo afka madaxweynaha ku hadlaya aanu cadeynayay ummadda reer Soomaaliland in madaxweynaha iyo dawladda iyo xukuumaddu ay u hoggaansan yihiin sharciga dalka ayna aqoonsan yihiin sharciga oo qoraya ama faafinaya awoodda ah in 10 sanadoodba mar la furo ururada siyaasadda si xisbiyada qaranka ay uga soo dhexbaxaan. marka goorma ayaa wasiir la furayaa ururada? waa sababta uu madaxweynuhu ugu gudbiyey golaha wakiilada. sharciguna wuxuu sheegayaa 6 bilood ka hor in lagu dhawaaqo, laakiin waxaa la ixtiraamayay golaha wakiiladu inay kala xadeeyaan qaabka loo gelayo doorashada oo ay ugu horeyso ururada siyaasaddu, ay ku xigto ta madaxtooyada, ay ku xigto ta guurtida. xeerkii hadda waxa uu hor yaalaa golaha wakiilada oo madaxweynaha ayaa dib ugu celiyey. marka maxaad u sugu weydeen inta uu golahu go'aan ka gaadhayo? xaq baanu u leenahay ka xukuumad ahaan fikirka inaanu la wadaagno ummadda reer Soomaaliland maadaama aanu nahay xisbina nahay xukuumaddii talada haysay dalkana nahay. fikirka iyagu sababtoo ah rag badan baa waxay u dhigeen in xukuumaddu aanay doonayn in ururada siyaasadda la furo. dad badan ayaa suuqa geliyey. sababtaa la ajligeed baanu u qabtay shirka jaraa'id inaan dadka ummadda reer Soomaaliland la wadaagno meel kastay joogto inay ururada siyaasaddu sidii sharcigu furan yahay ay xukuumadda iyo madaxweynuhu aqbalsan yihiin. ciddii rabta inay tartantaana ay u furan yahay saaxaddu. doorashada madaxtooyada ayaa bil ka soo horeysa wasiir inta uu dhacayo liisanka xisbiyadu. taa miyaydaan dareensanayn xukuumadda? madaxweynaha waxaa u haray sanad. doorashada ururada in la furaana 6 bilood baa ka hadhay. madaxweyne ma geli karo. waxaa dhacaysa liisankii xisbinimo ayaaba dhacaya 6 bilood ka baxdi. marka niman liisan xisbinimo haysanin doorashadii madaxtooyada. hadda xukuumad ahaan xeerkan ma dhaqangal baad u aragtay? totally waa dhaqangal. wixii madaxweynuhu ka soo jeediyeyna waxay ahayd isku hagaajinta qaabka la isugu hagaajinayo doorashooyinka dalka oo ururada siyaasadda ugu horeeyaan sidii loo furi lahaa ta madaxtooyada iyo ta guurtida. caqabado badan ayaa jira sida doorashadii golaha guurtida oo qorshaysan bisha May ee sanadka soo socota. ma la oran karaa arrintan waxaad u samaynaysaan si aad uga galgalataan doorashadii madaxtooyada ee dastuuriga ahayd? waxaan u malaynayaa cidda dhigtay xisbi ahaan iyo awood ahaanba horaan u sheegay cidda khamaartay ee dadweynaha reer Soomaaliland tustay mas-uuliyadda inay xisbiga kulmiye tahay oo maanta talada dalka haya xisbina haysta. cidda badda wax dhigtay waa annaga. dad badan ayaa aaminsan in aad go'aankan u qaadateen si aad muddo kordhin u heshaan. arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa? waxa weeye waa hadalkii yaalay. xukuumaddu sharciga dalka ayay ilaalinaysaa. madaxweynuhu qodobadiisa dastuuriga waxaa ka mid ah inuu ilaaliyo sharciga dalka. marka waa qayb ka mid ah sharciga dalka 10 sanadoodba in mar la furo ururada siyaasadda.